iskuulka Garissa High ayaa waxaa lagu qabtay xalfad lagu abaalmarinayay ardayda kaalimaha hore ka galay natiijada imtixaankii qaran ee sanad dugsiyeedkii 2017. xalfadda abaalmarinta oo ka qabsoontay gudaha iskuulka ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha qalabiyada baarlamaanka ahna xildhibaanka deegaanka Garissa, madaxda waxbarashada Garissa, culimaaddin, waalidiinta ardayda ay wax uga bartaan iskuulka. Mr. Ducaale oo ka hadlay xalfadda iskuulka ayaa tilmaamay ahmiyadda ay waxbarashadu leedahay, wuxuuna daayirta ku booriyay in ay ka faa'iideystaan fursadaha waxbarasho. Garissa number 1 qaatay constituency ninka education ka shaqeeya ardayda ugu fara badan oo jaamacad loo diro meeshii aad Mareykanka maaha. ardayda ugu boqolkii arday oo imtixaanka standard 8 maraan North Eastern 85 waxay ka yimaadeen constituency township. magaca booliis wasaaraddu waxay ku soo dhigtay 5 milyan iyo 5 laptops iskuulka magaca xirto Nairobi Mau ada PS Maradis ana xafiiskii ugu yeeray ugu maasal lacagta iyo laptop ku sii aan lido majority macaskay flash maayama. dhanka kale xildhibaan Ducaale ayaa ururweynaha mucaaradka ee NASA ku tilmaamay in ay siyaasadiisu qaawan tahay. Garissa كان المعارض مجرو ما دام دقي رايلا هو سبيبي عيدن كيسي وعوة تقود قعنتو نوكلي مركا الله ميلان Garissa جوجت ميلان Garissa جوجت معارض ورما يسيط راديا لغيسو معارض كينيا وقود بابا كلونزو لنعو عري كوي كلا عري كلا فارينين. Mr. Aadan Barre Ducaale oo ka hadlay arrimaha guurka oo adkaaday ayaa amray in la fududeeyo guurka. Rasuulka laga dhigo wax fudud oo raqiis ah. gabdhaha waa in lagu ninkaaxo 4 qalbood keli. shirkadana intuu ka yimaado meelaha kale Minnesota leeyahay waxa lagu ninkaaxay $10,000 $20,000 Garissa la keeni. culumadana waxaan dhahay intaad wali ninkaaxay weyti aduu ku $1 ninkaaxaska hooyadii rabta gabadheedu inuu $1 lagu ninkaaxo ninkaaxa sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ha noqoto raqiis.